garaal ma carafo shaqada iyo wadada oo cidhiidhi ahayd yaa kaaga soo daacay caadi dhimo laha kulley jidkoo jaama maanta arrintan kuugu yeedhay ayaa waxay tahay arrin labadeena bayna qusaysaa taasoon aan rabo horta waxaan nahay laba qof oo lamaanaa run ahaantii aada iskugu dheer muddo dheer soo wada socday ilaa 2 sano ah waxaan rabaa xidhiidhkan 2 sano soo dhisaynay inaan maanta ka midho dhalino waad shaqaysaa adiga ilaa iyo hadda kaama haya dhaqdhaqaaq aad igu tusayso inaan labadeenu midowno taasina waa sababta maanta aan kuugu yeedhay anigu waxaan rabaa inaan ka midho dhalino xidhiidhkii aan intaasoo sano soo wadnay run ahaantii anigu aad ayaan ku jeclahay la-aantaa walaahi nolosha waxba ima tarayso waxaan u baahanahay labadeenu inaan midowno si aan waalidkay kuugu geeyo od adiga iyo waalidka isku soo barataan ayaan diyaar u ahay run ahaantii waxaan jecelahay labadeenu inaan noqono 2 qof oo farxad badan kalgacal badan dhex mara inaan noqono 2 qof oo lagu daydo waan ogahay qaali saan anigu uga fikiray inaad adigu uga fikirayso laakiin aniga ayaa jeclaystay inaan ka midho dhalino muddo badan xidhiidhkaan soo wadnay maantana waan ugu faraxsanahay si laabtayda ugu weyn tahay inaan labadeena guri dhisno inay adigana kuugu weyn tahay waa runta waan dareemayaa hadalkaaga muddo 2 sano ah ayaynu xiriir leenahay xiriir kastaana wuxuu ku dhammaadaa waa guur dabcan aniga waan la socodsiiyey faamilkayga waxa kaliya sugaana waa adiga aragtidaada carafo xaqiiq haddii aan kuu sheego aadamaha intaa la eg adiga ayaan kaa doortay adiga ayaa runtii fallaakal gacay suray wadnahayga waxaa tahay qofka keliya ee aan nafsadayda siiyey xaqiiq waxaan kuu qabaa jacayl dhab ah misana xaddaaf ah lagamana yaabo jacaylka aan kuu qabaa qalbigayga inuu marnaba ka baaba'o si kasta oo ay duruufuhu u adkaadaan waayo waxaa tahay farxaddayda iyo rajada noloshayda okay run ahaantii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan labadeenu mustaqbal samaysano nolol qurux badan awlaad qurux badan walaahi run ahaantii maalinkaan ku hantiyo adduunka wax iga dhimanba male waalidkayga waan ku soo baraya insha allah waxay noo rajaynayaa nolol qurux badan iyo guul waarta iyo guriga iyagood aabbaha iyo hooyada aabbahay ku soo baratay walaaladay dhammaan faamilkayga allah isku keensi maxaa okay laakiin teleefonkayga maxaad ka fiirinaysaa haa waa mobile aad u qurux badan waxaan filayaa marka suuqa caadiga laga soo gadanhayo waxaa la siiyaa 4,000 ilaa iyo 5,000 laakiin suuqa madow markay tahay kas waa 3 ilaa 4,000 baa la siinaya waxaan ku dhihi lahaa mobilka xafid aad buu u qurux badan yahay insha allah waalidkaagana waa la kulmi doonaa waana arki doonaa insha allah oo waad soo bari doontaa haddii alla yidhaahdo أيامها عيسيقالي إلى حاد البركي وخير كعاني وحيق لقو عالمي مال العرى لغينو عدي وفرح لعاديستي صبح عيدا أدقا رشي يوم العرفادين
أبو aabo see tahay إيه ورن fiican tahay إلهي ما هديس maasha allah فريسو aabo maanta maxaa shaqada waadi weyday عرفه أبو maanta waxaan u shaqo tagi waayey waxoogaa yar waan liitay marka alxamdulilah haddana waan fiicana ilaahayaa mahadleh abo arrin muhiim ah ayaan rabaa abo inaan kuu sheego kowdhe calaa kulli xaal abo macan waxaad tahay hadda iskoolkii waa dhammaysay jaamacaddii waa dhammaysay waxaad sugtaaba waa guur un horaa waxaa loo yidhi gabari ama god ha kaaga jirto ama guri ha kaaga jirto gabar kastina maalin unbay reerkooda ee ka tagaysaa waxay tagaysaa reer kale ayay tagaysaa waxaana tahay gabadhaydii curadda ahaa oo aan jeclaa marka abo waxaa jira wiil aan isla shaqayno oo xafiiska ila shaqeeya wiilkaasna waa wiil aada u fariida aad iyo aad u akhlaaq badan oo aan jeclaystay inaan isaga aan nolosha la wadaagtid marka ka waran abo arrinkaas haddaan wiilkaas aan kugu daro maxaad ka qabtaa aabo wallaahi run ahaantii arrintan aad ii soo bandhigtay maaha mid anigu aan ku qanacsanahay sababo jira awgeed sababtaasoo aabo xaqiiqada ayaa ah waxaad adigu jeceshahay anigu run ahaantii waan kula jecelahay laakiin xaqiiqda waxay tahay inaan anigu wiil jecelahay aanan aabo anigu la-aantii noolaan karin waxaa doonto samee say farxaddaadu muhiim u tahay anigana aabo farxaddaydu waa muhiim waxaad ogaataa aabo wax kasta haddaad samayso inaan anigu wiilkaa la-aantii aanan marnaba noolaan karin carafo runtii ka aabba ahaan aniga maadaama aad ii soo bandhigtay inaad wiil 2 sano aada wada socoteen oo jecel idigana aad jeclaysateen inaad nolosha wadaagtiin kaama hor istaagayo waayo farxaddaada waa farxaddayda wallaahi run ahaantii aad baad u mahadsan tahay sababtaa ma jira aabba kaa wanaagsan saad aabbo farxaddayda u jecesha aniguna wallaahi waan la dhacay run ahaantii aabbo waan kuu keenayaa wiilka waana iskiin baraya aabbo se kuma faraxsanid aad iyo aad aan u faraxsanahay berrina waan sugaynaa aabbo okay aabba anigana waan ku keenay نعيمة هي الله نعيمة أبو maxaa kugu dhacay aabbo macaan walaal maxaa kugu dhacay walaalo adeeg doonaya wadada 3 dhigi kale ya 3 baa taleefanka iga qaato intii gaadhay ilaahay baa iga gargaarayba haye intii bay wateedo inay dilaabay reebeen taleefanka iga qaatay ma allah ilaahay inkaara ku rida walaal habaar qabaha ilaahay baa ku badbaadiyay walaalo taleefon waad heliye aam walaal shaydaanka iska naar walaalo naciimo waad heli taleefon walaalo shaydaanka iska naar bismillaahi raxmaani raxiim نعيمة بابا مردم بمشاس هاسكو مرين كودة مشاس سوقة أو لقوا يبان تماتم كأمانيا إذا وارد ميرنا وحبة اسمه رجلنا أبو لكن وحنكون شيء مردم بأبوها مرين مرة بأبو هنا دبلو يكاسو قاري كودة ولا شيء زمن كنا وحاس لأن يراس وحي أسمينا يان وبالوجاد وحن يعز سيد ويشينه كودة أبو مردم بأسكو مرين don't worry tan kalena ha ka badan anaa mobile casri oo aan kuu soo iibinay aad ku farxi doonto ya baba ya meeshaasna ogow ya hana marin hana ismurjinin ya abo anaa kuu jooga abo laakiin isilaali intii tabarta dariiqaasna ha marin ya waana ku duceeye mid kalaan kuu sheegayaa gabadha walaashaada war bay maanta noo sheegtay oo aadnaad ku farxi doontid baba abo gabadhan bari wiil ay isjecel yihiin ay doonayaan nolosha inay wadaagaan ayay beri noo keenaysaa haa marka adigu waxaad samaynaysaa beri cabitaan macaan ah soo dhaweys ya si aa u soo dhaweyn lahayd falkeeda gan cabitaan macaanna waa noo keenaysaa saan kugu sheegin murugadana iska ilaaliya
هيا بو أديك دي بنسكيل اللي وضعنا ما كمان قنية haya إن شاء الله والسوق يا تلافة كذي كنيسة إن شاء الله يا بو أنا سلالني يا كلي أفضل يد عارف فرحة له والله إن شاء الله سوى عم بنسول faraxsanahay. وين اللي أنا كله نوكد والسوق اللي alla ninkii muuna ahayn dhinkii taleefanka baarika wadada kale ka qaatay muuna ahayn bismillaahi raxmaani raxiim alla oo dhinkii tuuka haabe Macaawilkan kula aan ku barayaa waa kana wiilkii maanta gurigeena noogu keenay inaad aabbaha isbarataan ma jeclahay. barasho wanaagsan adeer warsamaa la yidhaahdaa farxad weyn bay ii tahay maanta inaan wada kulanno oo guriga ay igu timaadid waxaan ku leeyahay soo dhawaaw guriga waa gurigaagii ha ismatireen wax kastina waxaa ii sheegtay gabadhayda carafo inaad aad wada baxayseen oo mustaqbal aad wada sugaysiin aad ku heshiiseen markay ila socodsiisay aad baan u farxay waa kaas adeer waxaan ku weydiinayaa adeer adoo iga raalli ah kolba waxaan u malaynaa waa shaqaysaa ya tan labaadna gabar iyo wiil markay ay doonayeen noloshooda dariiqadii loo soo marayay inaad u soo martid ma garatay gabadhii waa taas waan ku siiyey maantana waxaad ogaataa mukhtaar inay adiga ay ku joogto gabadhaas ma garatay mar labaad hambalyo aan leeyahay kowdhe markaan arkay qaabkaaga iyo habkaad ya qof wanaagsan inaad tahayna waa ii muuqataa kowdhe de gabadhii waa kaas na rag noqo wax kaloo aan ku dhahayo adeer ma jirto balse waxaan ku leeyahay mar saddexaad hambalyo aabo runtii carafo wiilkan adii keentay runtii way ka muuqataa wejigiisa aabba inuu nin daacad yahay marka dee aabba adina waxaan ku leeyahay farxaddaada waa ii farxaddeeda sidaan hore kuugu sheegay dee waa kaas ani ahaan ka aabbo warsame ahaan carafo waa ku qalmaa wiilkan saasaan idin leeyahay ya maxaad cabitaanka la qabanaysaa laguma sugayo una waxbaan rabaa waxbaa inaan noo kuu sheego sheegnin oo bane una kaala waxbaan rabaa inaan kuu sheego ilaa hadal de naamiri baan idin sheegay inay baneenaya waxbaa la sugaya maxaa ku dhacay gabadhii oo ku dhacay ma garanayaa bujikada udhiib kor ugu qaad udhigaas cab adeer macaan aruus baa mar daba noqonaysa hawlaa ku sugaya waa ku sugaya cabitaankana badso iyo babaygana badso avokadahana badso ya waxa sufan kalena iska ilaali taas waxay bay keentaa mar adeer mahadsanid kolka hore soo dhaweyntaadana waan kaaga mahad celinayaa magacayguna waa mukhtaar wax walbana waa siday gacalisadeeda carafka kuu sheegtay muddo 2 sano ah inuu xiriir leenahay maantana
aad ayaan macnaha u dareemayaa farxad maadaama aan la kulmay Carafa aabaheed oo aabbo wanaagsan ah. Waana run in aynu soo marno kol haddii gurba la samaynayo sidii dhaqanka Soomaaliyeed u ahaa aynu lahayn aynu samaynaynaa. Dabcan aniga waan la socodsiiyey familkayga oo way ogyihiin inay Carafa waxa ay tahay iyo mustaqbalka aynu damacsannahay inaynu gaarno. iyadana sida lamida waa la socodsiiyey informationka waa haysaa. adeer mar labaad aad baan ugu faraxsanahay sida wanaagsaneed gabadhaada ii guddoonsiisayna mar kale waan kaaga mahad celinayaa. insha allah dariiqadana waan soo maraynaayo odayaashii dhinacayga jiray insha allah way ku imaan doonaan waanu kaa soo dooni doonaa si gacaltooyo ah weliba haddii allah u ogolaado. Carafana waa filayayo xoogaa xishood yar baa ku yar jire. maasha allah Carafo runtii adeer waa sidaas kulankeena noqon maayo kan oo keliya. insha allah marar kale oo badan ayaan imaan doonaa. haddana waan shaqeeyaayo shirkad yar oo private ah oo export iyo import samaysa yaan macnaha ka shaqeeyaa. wax macnaha naga maqan oo aan isleenahay way jiraan xaqiiq ma lahan. waxaan rajaynayaa inaad ducada nagu kaalmayn doonto haddii ala yidhaahdo. gabadhii Carafa ahayna waan guddoomay mar kalena waan imaan doonaa. haddana waxaan jeclaa in shaqo yaroo mukhtaar hadalladaad ku hadlaysay nin oday oo kale aad ku hadlaysaa waayo hal shay ayaa meesha soo gelisay oo muhiim ah. adeer noo duceeyaa tiri adiga iyo gabadheeda Carafa rabbi ha isku keensamo ilaahayna ha idinka dhigo laba isku waara guurkiina guur lagu nagaado rabbi aa idin rajanaa. ma garad soomahan waa kaas ducadiina waa taasa waa inoo mar kale export iyo import ka shaqeysana waa shaqo wanaagsan. qolba waxa u malaynaa fadhi fiican ee adduunyo inaa u dhigi doontid ya khayr aan idin rajaynayaa. marka soo dhawaawda marka guriga waa gurigaagay waa ka sidaa ya haye Carafo Mukhtaar sii dhawee waa idinkaas teh fi amaan illah hayaa adeer macaan. نعيمة لما حكوا قولي عبيتانك نوكينا كلها نوكين لا ذا واكاسا وبرن له هذا ويكي قبل نوكين تا ما حكوا قولي عبيتانك ما كنت وقبل أن ليا أبو واقصد أبو معن وانك ليا بنا مرة قاكل ويكي أدوسن أركينه هذا بحي كورن ويا أبو ويرو إذا بدن أخلاق بدن أي نوكين تا سوق لبسنا نظامك وهذا وأركتي ما قرتي ما حكوا قولي يا أبو وابو حوار وين أكو شيء أنيقا هيا إيشك بلا أبو معن بدي كان ولا شيء نوكت منين كان شيء سيدا ها وويل كان ويا ها ما دركت مركو بحي ما دركت وانا ركاب إلا مركو سوق لي وانا ركيب هيا كورا مربعني قصي بابو سو ما خل من كبدنا لا لا أبو محو قلب وحما وقديم به ها معان وقنا وما حق واحد شيء يصير وقنا فاقصد يا أبو بدي كان والدك تلافك يا قاتل وضد يقلي ديل قاري يا ونينك أبي ديل قاري بقى محا منين كان ينوف عني سياب ما في عنا منين كان يه مميلكي موبايل كان دعاية ما دعي ما دعي دعي كرتا بن باشا ودعي كتابة مميل كان اكسبورت امبورت وشقيا وان قرنا يا ابا محو شقيريا واتوق ودوينكو كلا ابو ساسو دعا وليك تلافك يا قاتل من دي وقبتي ديل قاري بل ابو دب كنا قبل اركاس بلا وان كاوا ابا دانا اركي سوما وانينكي ويسق لفتك اسمك سي بخاي من عبو صوت مره وان اسك قريو سو قلي لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ما بولاي ومن وين بيجوا حقيقة وقتها هي حقيقة وقتها أو نيجي نوقف عني سيكو فرح سريت بقى ها بين بوشة قاعد طبعا ما كمش وهو إنه بين وشاقي قبل وحاس موجا واحد يلسا هالنوتي ما دبوا وخيامة قبل خيامة وين بكسمة وحول ولا قوة إلا بالله العظيم
ma wiilka moobeelada dhacay leeda waa export kii import aabba ku wadada ii galay waan garanaya ma waa ku rumaysanaya aaba hanoo timaadayso wallaahi waa yaabo gabadhayda nasiib beelad haddaan ogaanay ka waran maalinka nafteeda ii bixiya waa kii dili lahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun salaamu qowlu min rabbi raxiim u yaar balyada dheeka waxbaan u sheegi lahay waxba ma ogin maxaa idinku dhacay aabbo dee waxii sheega maxaa idinku dhacay yaray dhegayso wiilkii imiga iga tagay mar dambe haddaad gurigeenna keentid iska jir gurigeenna ma imaan karo mana arki karo waayo aabbo maxaad saa u samaynaysaa muxuu kugu sameeyey wiilku waa caadi aabbo haddaba fariiso maxaad ka wadaa waxan wiilkan aqoon maa u leedahay haa aqoon waan u leehay aqoon jacelun baa u leedahay laakiin aqoon kale uma lihid dhegayso araf saan kuu sheegay way wiilkan waa wiilkii walaashaada kaa yar naciimo moobeelkii shalay ka dhacay uu ahaa waa been waxaas aabbo yaa kugu yidhi ma caddayn baad u haysaa aabbo walaashaa been sheegaysaa weliba niyaddaa ku sheegay naayaa been baad sheegaysaa qof aanad arag baad oo dusha ka saaraysaa ma sheegay waa ninkii wadada ii gala taleefanka ii qaatay dili gaadha walaashe maxaa ma war baad kacaysaa intaad dhab walaalo ilaahay ka cabso Waa ka si aad ugu cabsanaya. kala geysaa doonaysaa aabbaayana wuxuu rabaa arrintii ninkii ugu daray inuu ka dhabeeyo waan ini fahmaya anigu aniguna farxadaadan jeclahay dee anu ninku kuguma diray laha sug 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 aabba sug 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 yaray haddii aad leedahay aabbahaaga uu ku xawiya wiilkaasuu kula rabaa arrinku saas maahay hadalkayga si fiican ii dhegayso carafo haddaan mar dambe wiilkaas meel uu joogo aan kugu arko ballan waxaan kaa qaaday adoo nool inaan ku aasi doono sumcaddeenna iyo sharafteenana kuma ciyaari kartid kowdee weliba niyaddaa kusii haysaa wiilka saasay soo maahan ballan waxaa iga saan kugu qaaday ballan waxaa iga ah inaan lugahana aan kaa jajabin doono gurigaasna kama bixi karto meeluu joogana kuguma arki karo war waxaan maxay ahayd dhikakeena gurida saay naya adigu waan ku fahmayaa filinkaada waddo oo dhan waan fahmaya adiga aababa adna beenaley baa tahay runaantooda khiyaanta adiguna okay laakiin taleefankayga maxaad ka fiirinaysaa haa waa mobile aad u qurux badan waxaan filayaa marka suuqa caadiga laga soo gadanhayo waxaa la siiyaa 4,000 ilaa iyo 5,000 laakiin suuqa madow markay tahay kas waa 3 ilaa 4,000 baa la siinaya waxaan ku dhihi lahaa mobilka xafid aad buu u qurux badan yahay una maxaa kugu dhacay yaa aamudayaawoyinahayaan farxadaadoo maan jeclee aamudawnahayo walaahi waa runtay ninkani waa ninkii wax maadan nubsaninba maya walaalo Mama, adigu ku farxadayda sheegin ma ba. jeclid waan jeclay walaahi unaba beenteed nuulisa aamaya ooyineygane aamuno waa caadi walaalo wax walba way waxaa dhammaadeen jeceshaha maan kula jecelnay maad garanaysaa markaa walaahi ninkan waa ninkii yaa dhexda ii galay dili gaadhay walaashay maanta maana noolaan lahayn be haduu dili lahaye yaa haddaad beenta moodisa xataa un anaa ku tusaaye oo aad arkiba intan gishada xidhatid walaalo soomaad arag adigu bis waxaan rabaa meeshuu taleefanka kaaga dhacay xaggee ahayd una xakal basha khudaarta lagu iibi suuqa laabka dambeeya
aabba macaan run ahaantii waan ogay aabba inaan qalad kaa galay laakiin aabba aniga waxaad ogaataa inaanan qaladkaas waxba ku lahayn sababtoo ah dadka biniaadanka inta hore dhan weji qurux badan ay ku tusaan gadaal ayaad ka ogaanaysaa qof waliba aabbo wuxuu yahay run ahaantii aabbo wiilkaa 2 sano oo dhan ayaan la socday aabbo intaasoo dhan aabbo wii khaayimayey aabba macaan wax kasta way dhaceen waxaan doonayaa aabbo wax kasoo dhacay inaan kaa raaligelinayo aad aabba iga raalli ahaato aabbo haddana diyaar waxaan u ahay duca waali waa dahab iyo darajo qaaliya waxaan rabaa aabbo inaan ducadaada qaado waxalla waxaad ku faraxsan tahay aabbo waan samaynayaa sababtoo ani farxaddayda aabbo waa farxaddaada wiilkaa khaayinkaana lagama yaabo aabbo inaad mar dambe meel u joogo daya xataa magaciisa dambe aabba igama maqlaysid waan soo arkay aabbo tuug xuno khaayin oo la aabbo inuu yahay aabbo haddana waxaan diyaar u ahay wiilkaa walaalkaya eed adigu isoo xusho ee faamilkayga aabbo inaad iigu ducayso ducadaada iyo wiilkaaba aabbo waan qaadanaya waana faraxsanay aabbo macaan carab runtii ilaahay waa ku jecel yahay kowde maxaa yeelay waa loo baahnaa wiilkaas wuxuu yahay inaad soo ogaato haddaad soo ogaato oo asagoo moobeel dhacaya soo aragtay waa ilaahay naxariis aabba aniga wanaagaagaan jecelahay mayna sharaf xumo igu ahayn ya in la yidhaahdo gabadhiisii wiil moobeel xada ayay guursatay adna sumcata may ku tahay aniga ay tahay qoyskeenna oo dhan sumcata waa tagaan marka aniga waxaan kula jeclay qof wanaagsan wiilkaas inuu qof wanaagsan wado markii horeba miyaan kaa diiday ma garatay aabbo ya ilaahayna haddana saan kugu jawaajana ilaahayaan mahad berri neef geelaan qalaya masaakiin oo dhan aan siinaya kowde saa u sheegtayna wiilkaasna ilaahay hadduu yidhaahdo berri baan ku baraya berrina waxaad igu timaadaa xafiiska igu kaalay xafiiskaan kuu nabashaa si aan kuu furo ilaahay darkiisna ya qayladan kuu qaylinaya ka raan lahaa oo macan ya ayaa adigana ilaahay baana dhaafiyaba ninkaas maca salaama maca salaama alxamdulilah export import ku sheegay xageed ilaa waa moobeel dhacaabka export waa mindidii importna waa moobeeladu qaadayo inna lillahi wa inna qisad la yaab weligay tan oo kale ma arkin berri xafiiska igu kaala yaaba macan أبو عرفه وفي عنها يا أبو مياد بس صوتها هي وقصوي يا كذا يا أبو معنا هي إلهي نبضنا أبوك يا أبو ما شاء الله هيا أبو هيا أبو أسد هذا هلا هم إنك استوشى كتبت لكن نسخ يرى سمين إن موضوع يرى وأن درت قوسه هذا القاضي ayaan waxaan doonayaa inaan kula socodsiiyo waxaa jirta gabadhii aan kuu sheegay ani aan dhalay carafa ayaa noo soo socota hadda iyadaan taleefonka la hadlayo saan horeba kugu sheegay waxaan doonayaa adiga gabadhaas inaad mustaqbal wada yeelatiin waana idin ducaynayaa ya waayo akhlaaqdaada wanaagaaga ayaan jeclaystay si aan gabadheeda u wada inkastoo xafiisna aan ka wada shaqeyno maxaad ka qabtaa arrinkaas adeer horena waad ii ogolaatee ka waran mar adeer horta aad iyo aad baad umahadsan tahay sida sharafta iyo karaamada leh aad ila jeclaatay inantaada kulli wanaagaygana waad jeceshahay inantaada waxaad rabtaa inaad nolosha ku miisano oo noqono oliy diirkeed taasna waan kaaga doonaya عرفه magacaasi agtaada u ka dhintay أبو aabba macaan صمت يعني oo fiican aabba أي فريسة أبو ayaa أسد واتنا قبلي عرفه ويكن أسد بالي هذا إسبرتا قبل ده أنا عرفها لي هذا إسبرتا واقعس
anigana de shir baan galayaa ya khayran idin rajeynaya insha allah ya adeer macaan abo waa kana wiil soo dhowey walaal see tahay xaaladahaaga waan fiicanay walaa alxamdulilah adigu see tahay aad baan u wanaagsanay farxad weyn ayay tahay inaan ku barto maanta inta kale aabbaha wuu iga taataabtay in yar wuxuuna ii sheegay labadeennu inaan nolosha wadaagi doono maxaad ka wataa walaal horta si wax walba waxay u dhaceen sidii aabbahay kuugu sheegay waana ku faraxsanay inaad noqoto dooqii aabbahay iyo dareenkaygiiba labadaba aad baan ugu faraxsanahay waana kusoo dhaweynayaa walaalo waxaan jecelahay wallaahi inaan nolol qurux badan wadaagno waxaan kugu soo dhaweynayaa qalbi furan iyo gacmo furan soo dhow walaalo aad iyo aad baad mahadsan walaal waan kaa guddoomay adna sidoo kale waan kusoo dhaweynayaa inta kale aan kula kaftame mar alle markaad albaabka ka soo gashay qolku uu iftiimuu muuqayo ma laga yaabaa iftiinka la sheegaa waynu aniga yahay laga yaabay dhici kartaa waa wax dhacda walaal aad baad u mahadsan tahay carafo iftiinkii qoraxda waxaan ku yidhi maadaama hadda aan joogno meel xafiis ah waxaan jeclaystay inaan ballanno oon wada sheekaysano xaggan inta dhowrka meelaha casarka say kula tahay haddaan waqti ku wada qaadano waaw waxba kama qabo wallaahi insha allah waan kulmaynaa haddii la hedhaa kan iyo kulinka qurux badan baynaan qaadanaa jecela sababtaa qof u qalma ayaa tahay sax si wanaagsan aad baan u jeclay saad isu dhaweysay haddana waxaan jeclay inaan kusii dhaweeyo markan mahadsantahay صاحب مختار ما أنت من دوجيسن في حفلة صاحب gabadhii ifka aan ugu jeclaa yaan iska xumeeyay aniga walaal mukhtaar waxaad samaysaa hal salaam ku siinaya gacalisadaada raali geli waxaad ku jirtid hadday xumaan yahayna ka waantood qalbigeedana adaa hantin doona taas waa hubaal walaal saas sameeya macallin maxaa kugu dhacay maalmaha maad sira bedeshay boosasaadii hore kugu naqaani ma tiidi ninkii annagana soo saaray shaqadana bari waa xisii wax kaa yimiya waa maxay weligaadoo sidanaba kuma aragay adigu maxaa tulamaa wax jira wax adigu qaasoo dhibaato ku haysata haddii dhibaato ku haysatana noo sheeg kuma arag adigu sidan isku bedelay niyon waa labadiina waad rugtiin aniga dhibaato ayaan dareemayaa hawshan aynu ku jirnaay hawl fiican ma ah waxaynu dhibaato u geysanaynaa waa hooyo soomaaliyeed waxaan dhibaato u geysanaynaa waa aabbo soomaaliyeed
waxaan dhibaato u geysanaynaa waa dhalinyar walaaladeen ah. Hawshan aynu haynaa hawl fiican ma aha. Waxa aan ila suura gasho maskaxdeeda ka keenay shaqadan foosha xun ee aan bulshadeena ku dhibaateynayno inaan farahaba ka qaadno kadibna aynu macnaha noqono rag shaqaysta sharaftooda dib u soo cesha waxbarasho iyo wixii aynu dhaxda kaga tagnayna mar labaad inaynu dib u soo bilowno iyo anigan iyo ila quman haddaad igu raacaysaan iyo haddaad igu diidaysaan weliba waxaan jeclahay maadaamanu tiim isku xiran ahayn inaad ila qaadataan barnaamijkan oo aynu ka baxno dhibaatadan bulshada aynu ku hayno. horta bas fikirkaagu ma xumo maad garanaysaa marka horena shaqadan adun baa annagana barayo garanaysaa fikir qaldan aan aaminsanin bay ahayd si aan wax kusoo dhacsan karno maan weligeenba u haysanaba dee laakiin marba haddii aan xooggeena ku shaqaysan karno horta fikirkaas waa fikir wanaagsan oon kula qaatay kolley dee arrintan faamiligeyga dadkayga umaan ku dhibaateynin kolley xaafadeedina waan ku kala goonay maad garanaysaa mar haddii saas tahay waa fikir wanaagsan dadkeena wayna jeclaanayaan shacabkeenana waxbaan u tari karnaa waan isleeyahay waa fikir wanaagsan anoo ku raacsan horta anuu inaan iskaga baxno arrintan oo ku raacsan haye saa u qaadataan qaadanayna dhulka ay hooyna inaan ka shaqaysano wax ka cunno jira ka samaysano bood ka guursano anoo aqalkanaan insha allah jeedna laakiin hadda insha allah ka tabadkeena sidii hore si ka fiican hal mid baanu ku daraynaa dembi badan baynu bulshadeena ka galnay oo aan deegaankeeni iyo dalkeeniiba ka galnay dembigaas aynu galnay hal mid oo keliya iyaynu kaga macnaha aynay nadiif noqon karnaa midaana waa inaynu dembi dhaaf iyo tooba samaynaa oo aan ilaahay weydiisanaa in dhibkii hore aynu geysanay uu ilaahay naga dembi dhaafo oo aynu noqono dad wanaagsan ummadooda iyo bulshadoodaasna wax la qaybsada ilaah baanu ka rajaynaynaa ducadeena iyo go-aankan wanaagsan inuu gaarno inuu noo hirgeliyo insha allah.
noloshay isku aaminay laba iyo qol isbaratee kalgacayl abuurtay ayaqa dambejiyo noloshay isku aaminay ayankina wacan baa isu kinarkoodo ula jadabiini udubkiisi taajee udubkiisi ajee وعنبا يسكن الكودو ولا تدبيني ودبكي سداجي ودبكي سداجي راسك بحياة وأقل قبكيني راسك بحياة وأقل قبكيني وأفورا شعيركو يسديبا وبح وبح سديبا عرف ولا المرأة لما مركز وين كارت واضح المرسل وبالو حبايب انت الحين اين كاس بحايب انت الحين Orantaa waad saad sheegtay run ahaantii aniga iyo wiilkaas xidhiidh ayaan lahayn muddo 2 sano ah xidhiidhkaygu muddo 2 sano ah dhisan buu ahaa عرف ولا دي مدة 2 سنة وحرير من الحين حرير كم حب وحيقة تطاول sababo jira awgeed ayaan wiilkaa ku nacay taasoo keentay wiilkaasi inuu isagu leeyahay balwad taasoo ku biiray inamada taleefanada dhaca iyo waxyaalo la halmaala maantii maalintan ku arkay isagoo taleefan dhacaya aad baan uga xumaaday hadduu arrinku saa yahay waxaan xaggan u wada imanay inaan ka wada hadalno arrimo dhexdeena nolosheena iyo aayatiinkeena dambena inaan ka wada hadalnay laakiin hadduu arrinku saa noqday ma rabo inaan noqdo qof kale iyo laba qof oo isjecel waxaanan jecelahay inaan jacaylkiina dib u soo nooleysiiyey waa si wacan walaalo runaanti waxaa tahay qof aad u wanaagsan jacaylkana wax ka yaqaana wiilkaasna runaantii labadeeda dhaayood ayaan ka jecelahay ma jiro koonka wax yaala naftaydana allaha ka helo aan ku doorsanaya isaga adigana runaantii waxaan kuugu mahad celiyo ma aqaano sababtoo ah waxaa tahay wiil aad u qalbi fiican aad u wanaagsan jacaylkana wax ka yaqaana aad ayaan kaaga mahad celinayaa saad jacaylkayga igu soo celisay walaalo mar walba guulayso isagana aad baan ugu faraxsanahay shaqaduu helay inuu ilaahay u barakeeyana waan jecelahay ilaahay ha u barakeeyo insha allah shaqada iyo shaqo ka khayr badan allaha siiyo allaha ka soo hanuuniyo waxa qalbigiisa ku jiro dhan adigana aad baad u mahadsantahay runaantii maanta waxaan kuugu mahad celiyo ma aqaan waad mahadsan tahay midda kale inankan mukhtaar asxaab baan jaarna waan soo wada wuxuu hadduu shaqadii hore oo moobil dhaco ahaa haddana waa adiga arkay u ka waantoobay waxaanan hubaa saan wadkayga u hubo inuu shaqadii hore ku jiray ka waantoobay waxaan hadda jecelahay inaan labadiinna aan xidhiidhkiina kuu soo noleysay haddana fasax waa tahay waad u tegi kartaa maxaad iga soo doontay carafo aniga waxaan ahay qof xun godobna ka gala jacaylkaaga waalidkaaga walaashaha iyo weliba bulshadii aan ku dhex noolaa anigu mana istaahila inaad ii timaado bliis waa ku baryaa isku day inaad iga fogaataa aniga waayo uma qalmo inaad ii timaaddaa aniga nin xun ayaan ahay maya looma baahna inaad saa tidhaahdo ama adeeryada noocaasay igula hadasha aniga shalay aad baan uga xumaa runaantii markaan kugu arkay waxyaalaha maantana aad baan kuugu faraxsanay haysodhani carafku way ku nacday ama agteeda boosku maleyd waxaad ogaataa sidii shalay aan kuu jeclaa si ka daran inaan maanta kuu jecelahay aad qalbigaygana boos weyn ku leedahay
runaantii shalay waan kaa xumaaday laakiin maanta waan ku faraxsanahay shaqadaad haysana waan ku faraxsanahay shaqo ka fiican insha allah inaad heshana waan kuu rajeynayaa mukhtaar adeer farxad weyn bay ii tahay maanta inaan ku arko adoo shaqaysanaya waxaan aaminsanahay inaad ka door biday shaqadii hore aad ku jirtay foosha xumeed inaad ku buuxo bini aadamku wuu qaldamaa ilaahay un baan qaldamin ibni aadam khataa wa khayru khataa'u tawaabiin waxaan kuu haya jacayl waalidnimo farxadnimo sababtoo ah waxaad door biday mar labaad inaad shaqadan qabatid min rag baad tahay waana kugu dhiirigelinaya haddii aan lahayd gabadheedii carrafo markii hore anaa weerar ku qaaday aabba adigana wax niyo jab arkin aad baan ugu faraxsanahay maanta asagoo aad wada kulanteen aniga waxaan doonaya uun qofka wanaaggiisa mukhtaarna runtii waa kuu qalmaa mukhtaar waxaan ku leeyahay dadaal waad gaari doontaa ballanna iga qaad shaqadan inaadan daynaynin iluu ilaa intii ilaahay kaaga sahlayo shaqo ka wanaagsan waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo ma garatay wax kaloo aan idin dhahayo mana gabadheedii farxaddaada waa ay farxaddeeda iga qabo ushaada waana idiin mahadcelinaa ilaahayna jacaylkiinna iyo arrimihiinna ha idinku barakadayo fii amaan illah وبشار يقولو بالخير وياروسو بربرقور كوهشيسا بلانتي كدبايسي وبشار يقولو بالخير وياروسو بربرقور كوهشيسا بلانتي كدبايسي ومتانا بوبي وبحوية لبيري جعل ويا بسلادي بيحن دون عليمو ومتانا بوبي وبحوية لبيري جعل ويا بسلادي بيحن دون عليمو أساسين كالجيسا إلى عوكب بادي وبحبار يوصل على هنا كبيرو أساسين كالجيسا إلى عوكب بادي وبحبار يوصل على هنا كبيرو
وبقل دورو هاند ويا بشاشة وقبتي بردولو الكلو بهوليو معهد وبقل دورو هاند ويا بشاشة وقبتي بردولو الكلو بهوليو الهوى بقرنجيو ودلم بقرتويو وحايكو بربارتي بلد وين ذا نورتا الهوى بقرنجيو ودلم بقرتويو وحايكو بربارتي بلد وين ذا نورتا أساسي كلاقيسا إلهو كبتبادي وبحبار يوس علينا كبير